السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة أن مانتا وضع وقصة لما بحضي أبالكي قبدا يأقون تيدي. قصة نواقصة رنا واقصة دبا أن قصة هاتين وسكب لابنا قصة قف كيدين ستبنية واني واه عرفات محمد حسين كنا مقعدير عرفات حبيب أن قصة هاتين وسكب لابنا waqtiyaadka ka mid ah ayaa waxa dhacday in gabar yar oo 14 jir ah oo wali aad u dayar lagu daro wiil eelkooda gabadhii wiilkii iyo gabadhiiba wala isku guuriyay waana ay wada guri galeen. wiilkan iyo gabadhan labadaba ilaahay qurux ayuu dhameeyay ku darso wiilku wuxuu ahaa wiil uu hanti alla u hibeeyay oo hanti maanta aanay gabadhu uga fikirto aanu haysan balse hantidiisu gabadha si walba u qanacsan. halkii ayaa wiilkii iyo gabadhii farxadda wadaagay isku guursadeen. sanado kadib gabadhii wiilkii waxa u dhashay 3 caruur ah oo quruxda iyo istaalka iyo hanaanka ka raacay aabahoodii hooyadood. wiilkii guriga wuxuu ku abuuray farxad, wuxuu ku abuuray kalgacayl. caruurtana waxa ku dhalatay guri lagu barbaariyay jacaylka dhamaantiiba. wiilku guriga muu iman jirin ilaa uu xaafadda isagoo wax u sida gabadh iyo wiil iyo caruurba mooyee guriga muu soo geli jiray habeen iyo maalinba. farxad buu abuuray, wuxuu abuuray kalgacayl, wuxuu abuuray naxariis aad u badan oo inta uu maqan yahay la tago. waxay sidaa la ahaado caruurtii aad buu koriyeen. caruurtii waxay gaadhay heerkii waqtigii lagu dari lahaa iskuul oo iskuul la soo qori lahaa. waana la soo qoray, iskuulkii waa lagu daray. muddo waxay iskuulkii dhigtaanba waxaa timid dhalaar ka mid ah